دولة ميت عن شوريسا ما بترول كسوغيسا مدحوينة قبوريه فاقية ميات بترول كسوغيسا نكا دولكا دانتا قوت بليلي قيسانية ميات بترول كسوغيسا اسويدي عرق فيري اوهن محا ودنبي اوهن تاسي وحا ودنبي دادكي الصوماليين ee degan xaafada kalluunka saddex su'aalood ka jawaab madaxweynihii qabuuraha faagay miyaad batroolka sugay madaxweynihii meydka cashuura miyaad batroolka sugaysaa madaxweynihii dhulka danta guud dhacay miyaad batroolka sugay waa la barwaaqoobaya ummadda horumaray gaare waxba ummadda soomaaliyeed bayaa been loo sheegay maanta muhiimadda ay leedahay maanta wixii dhala tusay dadka soomaaliyeed oo sheegaya ama qabiil ku ilaali ama dam jadiid ama banaanka ka istaag dam jadiid waa fashilantay ana ku sheegayo dawladnimadiina meel cidlaay dhigan maanta maxaan maraynaa ilaa ilaaha illa allah muhammad sallallahu alayhi wasallam maanta maxaan maraynaa maabkii dalka naga dhumay maabkii Soomaaliya ayaa naga lumay waa dawladii Soomaaliyeed maabkii dalka naga dhumay naga raali ahaado qariiradii Soomaali way naga luntay naga raali ahaado bal arag meeshaan marayna arag in la fashilmay intaasaa kugu filan dhowr maalmood ka hor madaxweyne xasan sheekh maxamuud magaalada Nairobi uu tagay wuxuu ka dacwooday Axmed Maxamed Salaam muwaadin Soomaaliyeed madaxweynihii oo muwaadinkiisa ajnabi uga dacwoonay xasan sheekh ka hor weligay ma arag William Ruto waxaan ka rabaa inaad Axmed Madoobe ii soo qabato ii keen Axmed Madoobe waa madaxweyne muwaadinkiisa uga dacwoonaya ajnabi William ii soo qab madaxweynaha Kenya ii keen Axmed Madoobe ninka ajnabiga ah uu ka aqli badan yahay marka tiraahdo madaxweynaha Jubbaland iga fakaday ii keen wuxuu ogaanayaa inuu heli karo dhul uu adiga ka qaato Kenya waa cadowgeen maxaad gacanta ugu horsatay Kenya bad nagu haysatay haddaad tiraahdo Jubbaland iga maqan maxay ku sameynayaan aqli xumada arag cadowgeennii ceebteenu tus wana ceebay bal ninka bad kugu haystay ee dhulkaaga hore u haystay dhul kalena rabay inuu ka qaato haddaad tiraahdo Axmed Madoobe imo caaradsan ee ii soo qabo muxuu dareemayaa inuu Jubbaland kala wareegi karo aqligu markuu intaa marayo aaday laciif u tahay haygu sugin marka aniga hal dambiyaan galay qoladan talada dalka haysa ayaan taageeray halkaas maraan dambi galay maalintaasna qofka islaamka waa qaldamaadee laakiin inaan anigu u durbaantumo habeenka xalay oo tagay dadka qaar waxay ugu xantaan hadda layfan ahay mugta ma duubna barnaamijkan marka waa idila wadaagaya waxa la igu xantaa Cabdullaahi Balwaan xasan sheekhow wax ka waayay sida darteed ayuu mucaaraday waayahay maxaan ka waayay lacag ama xil Soomaali may aragteen anoo Muqdisho tagay may aragteen qofka xasan sheekh baahi u qaba xamar u tagaa qofka xasan sheekh lacag ka raba Muqdisho tagaa may aragteen anoo Muqdisho tagay waxaan hadda ku laaban doonaa Puntland waxaan mar kale tagi doonaa Garowe Boosaaso Qardho laakiin Muqdisho maya ogaada marka inaan wax baahiya u qabin haddaan xil ka rabo ama aan lacag ka rabo Muqdisho ugu tagaa lagama yaabo nin go'aan leh iimaan leh wixiisu ay cad yihiin anahay qofka aaminsanna waa taas almuhiim waxaa xaqiiqo ah oo aan 10 jeer ku celinaya adigu inaad ka jawaabtana loo baahan yahay wax kala maaha dawlad maab xifdi weysay ma xifdin kartaa qaran Soomaaliyeed ma xifdin kartaa qaran Soomaaliyeed waa kaas meesha surta ku ogaad maabkii dalkan xifdi weynay waa naga lumay maabkii ummadda waa naga lumay aniga ma dhihin wasiirka batroolka dawladda federaalka Soomaaliya inta soo fariisto wuxuu yiri naga raali ahaada qariiradii shalay aad aragteen qalado ahaa annaga maabkeen aaw weligay ma arag xafiis dawladeed oo maab oolin xafiis dawladeed oo aan maab oolin horta meesha inaysan dawladda ka jirin ogaada mooriyaan isbahaysatay ayaa horta meesha isku haysta wax dawlad la yiraahdo oo Soomaaliya ka jiro
haba yaraatee malaha runtan ku sheegaya haddii dowladda jirto waxaan arkayna maanta ma arki lahayn arag dhulkii mudug markii la arkay ciidanka puntland markii la arkay oo la arkay ciidamada jooga mudug oo la ogaaday awoodda puntland ay leedahay maxaa lagu jawaabay annaga waa qaldanay mahana ulama jeedin hadduu alla ku idmaayo dhibaato kale ulama jeedinoo waanu qaldannay maxaad ku qaldanteen waxaad ku qaldanteen markaad aragteen teknikadaas ciidankaas markaad aragteen aad qaldanteen soo maa meeshaan marayn arag marka muhiimadda ugu weyn soomaaliyay ogaada muhiimadda ugu weyn oo maanta dadka laga leeyahay inna laga aqli badan yahay ayaa waxaana laga dhaadhicinayaa maabkii aan soo bandhignay qalabuu ahaa alloore dowladii ma jirto dowlad aan qariiradda soomaaliyaba haysan dowlad ma ku tilmaami karnaa caadiyaan u sheekaysanaynaa lifeaan ahay maanta ma soo duubin barnaamijkan waa life waa sheekaysanaynaaye madaxweyne xasan sheekh maxamuud xafiiskiisii waxaa laga waayey maabkii dalka intuu ku jiraa internetka dowladdu internet la'aan miyaa haysa maya maxay u soo saari weysa qariiradda anaa daabici kara adigaa soo daabici kara xafiis dowladeedaa qariiradda laga waayey aniga nin waalan may ii malayaan marka bal arag dad waalan may noo maleeyaan xafiisyadii dowladda iyo internetka miyaa qariiraddii dalka laga waayey maya hay-ada hoosta naga gelisay adiga soo dowlad ma tihin maxaad u kontrooli weyey hadda haddii dowladdu warqaddan gacanta loo geliyo miska qaadanaya dowladdu ma iska qaadanaysaa bal arka jaahilnimada ummadda lala hor imaanaya arag warqad haddaan dowladdu u geeyo qofka mas-uulka muxuu samaynayaa warqadduu eega ma jiraa mas-uul warqaddaas asagoonan eegin xaflad qabanaya oo xafladdaasi ku soo bandhigaya ma jira su-aashan jawaabteedaan idinka rabaa sida ay dowladdu noo sheegtaan ka duulayaan ma jiraa dowlad inta warqad loo geeyo ayadoon fiirin xaflad dhiganaysa ma laga yaabaa xafladdaasna dadka ugu sarreeya inay ka soo qayb galaan jawaabtu waa maya halkaas markay marayso sheekadu waxa weeye waa fashil iyo caad dad aan dowladnimada aqoonin baan dowlad u dhiibannay anaa kule dad aan dowladnimada aqoon ayaan dowladnimo u dhiibannay dad aan aqoon nidaam iyo kala dambayn iyo sharci ayaan dowlad u dhiibannay ummad aan hoggaan aqoonin baan dowlad u dhiibannay anaa kule arrinta shidaalka wallaahi waa ku faraxsanahay dalkayga inuu shidaal yeesho oo bilaahi oo tallaahi sidaan u jecelahay dalkayga inuu batrool yeesho si lamidaan beenta u necbahay ayaan beenta u necebahay laakiin waxaan diidayaa howl uu qabtay madaxweynihii hore ee soomaaliya wallaahi waa kana oo bilaahi oo tallaahi dukumentiga waa kana madaxweyne farmaajo khayr allah ku siiyo howl uu qabtay madaxweynihii hore inta la dhihi lahaa qori isku dhiib weeye arrintan ayaa lagu leeyahay xasan sheekh maxamuud dal xoreeye aanuu adeerkee yahay anaa runta u sheegaya dalow xoreeyey ummadoo wax u qabtay ma jiro anaa kuu caddaynaya anaa iimaan leh anaa sharaf leh anaa oggolayn inaan durbaan u tumo kooxda damujideed anaa runta ku sheegaya intaas horta fahm maanta marka muhiimadda igugu qosolka badan waa taas marka maxaa la sameeyey markii la arkay in la fashilmay waxaan soo kordhi doonaa lifeka horta raalli ahaada lifekaan soo kordhi doonaa si fiicanaan u sheekaysan doonaa wacdarooyin fara badanaa soo socda wax badanna waa kasoo sheekay doonaa insha allah aniga waddada saxda ah oo aad shalay igu ogeyd ayaan weli ku taaganahay mana laga yaabo laba arrimood haba isdhihin madaxweyne xasan iyo kooxdiisa balwaan iibi kara haba is oran aniga beec maahi aniga ummadayda soomaaliyeed waa ii siman tahay aniga wada jidka iyo wada socodkaan jecelahay aniga nidaam walba oo dhaqaaqayaan taageeraya marna lagama yaabo inaan ummadda soomaaliyeed dhabarjibin ku noqdo sidaa darteed beenta waa shay xaaraana waana ka soo horjeeda waxaa ku soo haray damu jadiid batroolan ku aaminaynaa sooma batrool haye barwaaqan gaaraynaa haye yaa madaxweyne noo ah marxuum nin canshuuraya ma dhintahaa canshuur qof maa kaa dhintahaa canshuur bixi
ما لغو فري عنشور ما لغو قرصة عنشور ما الدولة ميد عنشور يسان شلال كسوغينا هذا كهرباء حسن شيخ محمود هل سنة يلح بالوضع قول من مدحوينها كحيقة أيها بترول كاس نوصو صاري دون بترول كاس مدحوينها كحيقة نوصو صاري دون هذا نقر درنا هاي هذا أي قبان كرا إسوافجي مدحوينه هلا يوحو أوكيالها أن وطو وحنكو أركان بترول إيه هرومر يا دهيا حسن شيخ قريرة هرتي ستال قريرة دا سمحو أركواي الشدال بدا هرتي سكجرة هدوبا أركي محو أركواي قريرة هرتي ستال وابين وحبك مجرى وحلو قضيي بل إني نوليهين إيو إني لنتين بوتلان إيو أساسي قاتو markay Puntland soo jawaabtay waa laga laabtay maamulka Hirshabelle waa la inkiray waxa laga dhigay Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ka saarto qofka maanta marka durbaan tumaya oo isla shidaal lagu soo saaraya isku kay qabadsi meeydan Ashura shidaal waa soo saaraya aadan ku salaamaya Jiddu Xuseen meeydan Ashura waxana soo saaraya ma soconay meeydan Ashura waxaana soo saaraya batrool iswaafaji gabadha la furaan canshuuraya batrool aan soo saara haye had bal arag waxyaabo laga xishooda jira waxyaabo laga xishoodo ayaa jira arag marka meesha la marayo nasiib darrada meesha talaarag maanta meeshaan taaganahay arag mar labaadaan ku celinayaa qariirad qaldantay ma jirto ujeedo ayaa loo qariyay waana lagu dayay inaan noolnaha la arkay waana laga soo jawaabay kadibna dib ay uga laabtay intaas ogaada qariirad luntay ma jiro maxaa yeelay madaxweyne fiiri qariiradu intay ku jirtaa laptopkaaga qariiradu intay ku jirtaa internetka meeqay qaadanaysaa in qariirada la daabaco wax ka yar 5 daqiiqo wasiirku wuxuu leeyahay waqtigan u weyn ceebta Allah hastur wasiirku wuxuu leeyahay waqtigan u weyn bal arag madaxweynuhu waxa leeyahay wala waay qariirada Soomaaliya ma laga waayo qof xafiiska dawladda ka shaqeeyo daabaca waxaan marka waa ujeedadaas maxay ahayd in lagu dayo qariiradan waa dhab waa xaqiiqo waana lagu dayay balse waa iska qabanay taasi waa guul iyo gobonimo Soomaa waa guul iyo gobonimo waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynayaa inay fashilmaan kooxdan Damujadiid waa soo dhaweynayaa mar kale aan ku celinayaa qof wuxuu isoo qoray maadaama life ahay dhanka wanaaga wax ka eeg nacashihu very good waa su'aal fiican waa ka jawaabaya maanta xor nacas waxa la yiraahdaa qofka ummadda durbaan qabiil la soo hor istaagay iyo laaruush qofka qaato qofkaas nacas alxamdulillah aniga laaruush ma qaato qabiilna ma taageero Soomaali dhaba oo xaqiiqda tilmaami karaan maxaan ku wanaajiyaa Damujadiid oo naga dhaxeeya waxba ma waxaan iraahdaa Xasan dal xureeye dalkee la xureeye iishe in ka badan saraakiisha naga dhimatay Xasan Sheekh intuu joogay 15 sano naga dhiman 15 sano naga dhiman war ma waxaan iloobaa xasuuqi loo geystay ciidanka qaranka ma soo waxaan la yiraahdaa madaxweynuhu waa nin hawiya waa nin hiraabo annaga ayaa dalka haysana ilaahay iga koray taas waa sharaf muhiimadda marka qoladan aniga talada dalka haysa wax kale oo ku tilmaami kara ma ayax baahan oo aan dhargeyn waay runtan idin sheega soo dhawaada saaxiibada qadarinta leh waxaan ka jawaabayay oo live-kan u soo galay arrintii qariirada inta hadda la soo qabsatay barnaamijkan waa live ma duubno su'aal walban ummadda uga jawaabaya si toos ah oo live aad ii daawanaysaa qariiradii shalay la soo bandhigay ee lagu xadgudbay dhulka uduga ee Puntland lagu xadgudbay maamulka Hirshabelle lagu xadgudbay Galmudug la yiri wax la yiraahdo Hirshabelle ma jiro la yiri Galmudug waxay ka kooban tahay hal gobol oo ah Galgaduud mudug waxa la yiri waa lagu muransan yahay dhulkii Sool iyo Sanaag iyo Caynoon hal sano ka dagaalamay ay waxay ii keeneen waa lagu muransan yahay waa dhulkan xureeyay waaya dhulkii aan xureeyay ee anigu agtayda saaray ayay dhahan dhul lagu muransan yahay waa ma heshiis naga dhaxeeya ma jiro haddaad isleedahay Cabdullaahi Balwaan jagaal lagu booday iyo lacaga lagu boodana nin baahan haddaan ahay xamaran tiglaha nin baahan haddaan ahay ama xil uga baahanahay wallaahi xamaran tiglaha
مي أركتنا أنا حمر تجي laga ma yaabo intay demu jadiid madaxtooyada joogto inaan xamarto ujeedadu maaha magaaladu waa magaaladeedii laakiin wax kale maaha ujeedadu waxa weeye qoladan qowlaysatada ah afkayga kula dagaalamaya waana hubaa inaan ka adkaan doono shirkii golaha wada tashiga qaran magacii fashilmay ayaa waxa ay wararku sheegayaan in la isku yimid saddexdii madaxweyne maamul goboleed iyo haddawaa saddexdii jeebka ku jiray iyo xasan sheekha isku yimid shirkii waxa la yiri is araga koowaad oo noqonaya hordhigay oo haye waa ka soo hadli doonaa tan shirkii waa la soo hor yimid madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu u dacwooday madaxweynaha Kenya caawan ka soo hadli doonaa kaas madaxweynihii Jubbaland ayaa laga dacwooday madaxweynihii Kenya looga dacwooday madaxweynihii Jubbaland waxa la yiri naga qabo waa madaxweynihii ugu horeeyay muwaadinkiisa Kenya uga dacwooda fadeexadaas caawa noo balana caawa live kalan soo gali doonaa caawa noo balana taasi arintaas waxaan ka sheekay doonaa caawa laakiin muhiimadda hadda taagan waxa weeye arintan fashilka ah shirkii muqdisho ma la isku yimid iyo kaadaan akhriye magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya waxa ka saacadaha soo dib u furmay shirkii golaha wada tashiga qaran yaa joogo lafta gareen alla ku ceebay yaa jooga qoorqoor yaa jooga cali guudlaaw shirka golaha wada tashiga qaran ma jira maya ujeedada shirkan laga leeyahay maxay tahay muddo kordhin ma ogolaanaynaa ha sheegi xasan sheekh shalay isagaa qoray qaatay xabad ku riday madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo maantana qoray ayaa looga hor istaagaya anaa ku dhahaya cid kale ha weydiin inuu xasan intuu madaxtooye tago oo joogo habeenka xalay oo tago waay waxba yaan ummadda beenta loo sheegin waxaan ku faraxsanahay in wax kastaba natiijo wax ku oola ay ku dhamaan doonto sharuudihii axmed madow baa lay soo dirayaa caawan ka soo hadli doonaa ayay sharuudaha uu soo saaray caawan ka soo hadli doonaa sharuudooyin muhiima ayaa miiska ii saaran madaxweyne axmed madoobe iyo arrintiisa caawan ka hadli doonaa marka batroolka Soomaaliya aniga cid iga jecel male laakiin beentaan nacebahay batrool xasan sheekh haddaad ka sugtaan dad waarana tihiin isbitaalka waalid aadam واي ورنين كحشو واي ميت هذا بترول كسوتور بترول كحس الشيقة نوقضة دوانين ميت كده ميت حس الشيقة نوقضة يا بترول ميت هذا وحما هي قبائل لذا يتقالدنا صرت هذا وكسر رمي دونا الشباب لذا دحى ضد ولا لا أبجاله أيال إسكندرية الشباب لذا هوسي هوية يدقل الملف لا مدح الإسكندرية ولا لا هي halka degan waxaan leeyahay demu jadiid qorshahay wada toakaas maantana maxay rabtay inay gaalkacyana dagaal ka rido bal arag gaalkacyo inay dagaal ka rido galmudug lagu dagaalamo hirshabeelle lagu dagaalamo shabeellada hoose lagu dagaalamo inta dagaalkaasi la wadana ay batroolka kaligood qaataan lacagii batroolka waa sax axmed madoobe iyo dani maanta uu ka soo hadlay waa sax laakiin insha allah wixii duuduuban arrintaas waxaan uga hadli doonaa iyadoo duuduuban caawa live-kayga kale caawaan uga soo hadli doonaa waxaan rabaa marka dadka inay mid ila fahmaan intaanan ka bixin live-ka shanta madaxweyne maamul goboleed aan idin kala barayaa saddexdan hadda xasan sheekh la joogto waa nimankii khiyaanay madaxweyne farmaajo ma ilowdeen madaxweyne farmaajo ayaa khiyaanay qoorqoor cali guudlaawe iyo lafta gareen muxuu ka faa'iiday farmaajo inuu saaxiib ka dhigto waxbana horta ogaada saddexdan qofka wato waa qof fashilmay qofka lafta gareen qoorqoor iyo cali guudlaawe aamina waa qof fashilmay shalay jilbaha dhulka ugu dhuftay marka labada shanta madaxweyne labadan hadda saaxiibaday saciid cabdullaahi dani iyo axmed maxamed salaam axmed madoobe go'aankooda waa mid adag waana ka adkaan doonaan xasan sheekh meel iiga qora ma ogolaan doonaan waana ka soo warrami doonaa arrintaas insha allah dalkuna waa barwaaqo gaari doonaa laakiin waa daba jadiid kadib haba rajayni warma axmed macalin fiqi xasan sheekh maxamuud iyo yuusuf madaale iyo xamse cabdi barre miyaan ka sugaynaa dal barwaaqa no ma dhacayso waayahay wixii ku soo kordha barnaamijyada kale ayaan idinkugu soo gudbi doonaa caawa iyo live-ka xiga xiisuu leeyahay halkana live ka soo geli doonaa live-ka caawa waxba layskuma yaraysan doono
waxaan soo gudbi doonaa xogihii ugu dambeeyey oo ugu xiisaha badnaa halkan ayaad igala socon kartaa facebooka bejka cabdullaahi balwaan ummadayda sharafta leh daawatay daawad doontana waxaan u sheegayaa anigu waxaan qaatay soomaalinimo iyo sharaf iyo cizo qof kasta oo soomaaliyeedaan la safanahay si kale markaan hadalka u dhigo cid kasta oo dalkan toosinaysa qabiilku doona ha ka soo jeedo waa la safanahay qabiil ma qoro ha iga sugin ilma adeernimo qofaan ku difaacaya male anigu bannaankaasaan taaganahay waxaan ka hadlayo waa wax xaqiiqa oo taagan ciddii dulmiga wadda cidday doontaa ka soo jeedo karbaashkaygu waa diyaar lifeka caawa iyanu ku sheegin waana idinka raaligelinayaa bejkan maalmahan waa dee waktigii ciriiri fara badan iyo dee waktigu waa iska ciriiri laakiin lifafka ayaan kordhi doonaa wax badan baad halkan kala socon doontaan insha allah waana la guulaysanayaa waan hubaa in la guulaysan doono waan hubaa shaki kuma jiro marka lifeka kan xiga yuusan ku sheegin intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo